saddex caqabo oo jidka inoo yaalay khatartooda leeyahay saddex arrimood ayaan jidka jannada aan u hayno khatar ku haya saddexda arrimood maxay midda koobaad horta waa naftaadu janno kula ma rabto naftaadu khayr kula ma doonayso naftaadu shaydaan bay saaxiib la tahay naftaada iska celi inna an-nafsa la ammaratun bis-suu illa ma rahima rabbi naftu xumaanta ayay dadka aad u amartaa haddaad doonayso inaad khayr samayso waxay ku leedahay maya iska naso macsiyada iyo dunuubta ilaahay kaa fogaynaysa ayadaa kuu qurxinaysa kuu jiidaysa maqaadiirta iyo qadaha ilaahay kugu imaanaya alla kuu qorsheeyay inaadan ku sabrin oo u adkaysan ayadaa sabab u ah bal horta naftaada cadow ka dhigo oo iska jir haddaad saaxiib ka dhigato ku hogaamiyo kula taliya shahwada naftaada oo halis wa amma man khafa maqama rabbih wa naha an-nafsa 'anil hawa fa innal jannata hiya al-ma'wa wa amma man khafa maqama rabbih rabbigi hor istaagiisa ruuxi ka baqa naftu waxay rabtana ka celiya janna ayaa abaalgudkiisa iyo hoygiisa maxaa la yidhi rabbigaa inaad ishortaagi doonto ayaad ka cabsanaysaa maxaad la kulmi doontaa ma intaa keliya maya naftu waxay rabtana ka celiya u diida maxay rabtaa naftaadu waxay rabtaa inaadan tukanin diid haddaad janno rabto naftaadu waxay rabtaa inaad xaaraam cunto diid haddaad janno doonayso naftaadu waxay rabtaa inaad sinaysato oo wax alla wixii jidka kaaga soo horbaxaba ay naagtaadii noqoto inaad balwadaada raacdo haddaad janno doonayso diid naftaadu waxay doonaysaa inaad wakhtigaaga lumisood meelaha taagtaagnaato ha ka yeelina diid naftaadu waxay doonaysaa cilmiga iyo dhibkiisa inay gasho ma rabtee inay jahli iskaga noolaato diid oo wax baro wanaha an-nafsa 'anil hawa naftu waxay rabtaa ka qabo oo u diid haddaad janno doonayso nafta marna waxay noqotaa shay aad u qiimo badan marna waxay noqotaa shay wax jirata ugu qiimo daran bay noqotaa saas daraadeed ahmiyadda ay leedahay buu rabbi subxaanahu wa tacaala intaasoo dhaarood intuu isdaba dhigay buu wuxuu ku dhaartay waxaa liibaanay nafta ruuxii dahira nafta ruuxii aasa oo dulleeyana wuu khasaaray buu rabbi subxaanahu wa tacaala bal inta dhaarood rabbi isdaba dhiga fiiri qad aflaxa rabbi subxaanahu wa tacaala wuxuu yidhi waashamsi waduxaaha waalqamari idaa talaaha waannahaari idaa jallaaha waallayli idaa yaghshaaha waassamaa'i wamaa banaaha waa laba waalardi wamaa taxaaha waa laba wanafsin wamaa sawaaha waa laba tobankaa dhaarood markuu tobankaa ku dhaartay rabbi yaa wuxuu yidhi فألهمها فجورها وتقواها قد أفلح من زكاها وقد خاب من دساها toban kaasaan ku dhaartaye waxaa liibaanay nafta ruuxii dahira oo ka adkaada oo xumaantana ka celiya wanaaggana marsiiya waxaana khasaaray naftiisu ruuxay ka adkaato nafta xaqira shirki ku xaqira jahli ku xaqira macsiyo ku xaqira ilaahay subxaanahu wa tacaala jidkiisa inay ka leexiso ruuxii ku xaqiroo ka yeelaay kaana waa khasaaray nafta ruuxii dahirana waa liibaanay buu alla ku dhaartay subxana wa tacaala toban dhaarood buu ilahay isdaba dhigay subxana wa tacala naftan marka walaalayaal iska qabta naftan iska qabta waxaan meesha idin keenay oo badweyntan idin soo dhexgeliyey waa naf waxa ilmihiinna halkan keenoo khatartan soo geliyey waa naf waxa boqolka beenood iyo boqolka khayaano loo gelayo waa naf baa waxaan oo dhan wadatee haddaad janno doonaysaan naftan warkeeda ha yeelina wanaha an-nafsa 'anil hawa fa inna al-jannata hiya al-ma'wa caqabada koobaad marka waa naftaada la tashan
caqabada labaad waa adduunyadan iyo dhaldhalaalkeeda nafteenna jecel haddii aad naftaadu jeceshahay waxaa la doonayaa shaygan adduunyada la yidhaahdo inaad ayadana si taxadar leh u qaadato waa meeshii laga soo galay aabbaheen aadam markuu ibliis luminayey oo khaldahayey wuxuu ku khalday adduunyadu u qurxiyey lausayinanna lahum fi اlardi walauغwiyannahum ajmaciin walla inaan dhulka u qurxin buui waxaanuu kuu qurxinaya adduunyadiibuu kula weynaynaya qiimuu u yeelaya wuu naashnaashaya nolol kaleba inaysan jirin buu kaaga dhigaya wixii buu wax weyn ka dhigaya adduunyadan marka iska ilaaliyo si taxadar leh wixii ilaahay kaaga qoray ka qaado oo xalaal ah iskana jir oo ha ku kadsoomin falaa tagurannakum alxayaatu اddunya adduunya yaysan idinkadinin buu rabbi leeyahay subxaana wa tacaala adduunya yayna idin sirin ha ku kadsoomina ha ku khaldamina iska jira buu rabbi leeyahay subxana wa tacaala iska jira macnaheeda ma waxaa laga wadaa ha shaqaysanina iska fadhiista miyaa laga wadaa maya shaqaysoo xalaal raadso laakiin maxaa la doonayaa adduunyadu yayna ku seejinin wixii ilaahay kuu abuuray ujeeddadii lagaa lahaa aakhiradaadii jannadaadii mustaqbalkaagii adduunya yayna ku seejinin caqabada ugu dambaysa ee saddexaadi waxa weeyaan waa ninka la yidhaahdo shaydaanka iyo ibliis baa wuxuu yahay caqabada saddexaad oo jidka jannada inoo fadhiya laaqcudanna lahum siraataka almustaqiim uma la'aatiyannahum min bayni aydiihim wamin khalfihim wacan aymaanihim wacan shamaa'ilihim walaa tajidu akarahum shaakiriin ilaahay hortiisuu ka dhaartay wuxuu yidhi walle inaan horay kaga imaan oon gadaal ka soo geli oon midig kaga imaan oon bidixda kaga imaan oon jidka u fadhiisani intooda badanna heli maysid inay kugu shukriyaan shaqo kale ma leh sida nebigeennu sheegay salawaatu rabbi wasalaamu calayh kursigiisa iyo carshigiisa ugu weyn biyo korkood bay saaran yihiin mamlakada uu ka maamulo adduunka ka maamulo ninkii la yidhahdo ibliis badaha iyo biyaha korkooday saarantahay halkaasuu joogaa odayga ugu weyn halkaasuu joogaa halkaasuu subaxdii marka ciidamada ka kala diraa bini aadamkaad arkaysaan ruux kasta oo ka mid a mid buu ku lamaaniyey oo shaqo uga dhigay shaqo kale ma leh isagu ma xamaasho ma shaqaysto hawl kale kuma mashquulo ma daaho adigaa unbaa iyuu shaqadiisu waa adiga bal ka warran marka ka warran ma aragtid kuuma muuqdo iskama riixi kartid candhuuf kuma tufi kartid si aad ka yeesho ma taqaanid kaama maqna adigii unbuu kugu lamaanyay dan kalena ma lehee adiga dantaada inuu ku seejiyo unbuu doonaya bal ka warran marka soo khatarinteeda leeg ma ah khatarinteeda leeg haddana wuxuu kaa soo gelayaa naftaaduu yaqaanaa ruux walba naftiisu waxay jeceshahay iyo meeshay ka dabacsan tahay iyo boyntiga ay ka jilicsan tahay buu garanaya markaasuu ka soo gelaya mid baa wuxuu u jilicsan yahay xagga dumarka iyo shahwaduu u jilicsan yahay xagga zinaduu ka soo gelaya dhankaasuu u jiidanayaa isaga mid baa wuxuu u jilicsan yahay xagga adduunyada iyo jacaylkeeda albaabkaasuu kaga imaanaya markaasuu adduunyada xaggeeda ka soo gelaya jiidanaya mid baa kursi jecel oo magac jecel dhanka magac jacaylka iyo kursiguu ka soo gelaya markaasuu duubsanaya xariif weeye waa yaqaanaa mid walba meeshuu ka galuu garanaya aabbaheen aadam xaggee buu ka soo galay yaa aadamu hal adulluka calaa shajarati alkhuldi wa mulkin laa yabla aadamu ma ku tusaa boqortooyo waaraysa iyo nolol aan dhammaad lahayn ma ku tusaa waxaad ku gaadhayso aadam ilaahay baa horay uga digay oo ku yidhi iska jire aadam warkiisa waa ku kalsoonaan waay geed haddaad isticmaashood cunto aadamow aad gaadhayso boqortooyo aan dhammaanaynin duugoobaynin iyo jiritaan waaritaan aan weligii aan geeri lahayn geedaad ku gaadhaysa ma kuu sheegaa haa waa ka geedkana cun rabbigaa wax kale kuuma diidine inaad malag noqoto unbaa geedka lagugu diiday ee bal tijaabi aadam warkii waa ka dhagaysan waaya markaasuu u dhaartay
waqaasamahuma innii lakumaa la min annaasixiin wuxuu ugu dhaartay inaan daacad idin ah warnimayo idinma sirahayo aadamow maxaan kaa siri adiga daacad baan ku ahay wax kaa qarsoon baan kuu sheegahayaa ha qaado geedda cun boqortooyo halkanay taallaa aan dhammaad lahayn nolol aan weligeed aadan ka dhimanin halkanay taallaa ha seegin aadam waa ka marka waxa weeye ku dhacay wacasaa aadamu rabbahu faqawaa qaar buu marka boqortooyada ka soo geli qaar buu wuxuu ka soo gelayaa xagga dumarka iyo shahwaduu ka soo gelayaa qaar xagga xooluhu ka soo gelaya qaar xagga magac raadintuu ka soo gelaya magac iyo wuxuu rabaa inuu yacni mashhuur noqdo inuu caan baxuu doonayaa mid walba meesha daciifkaa ee laga soo geli karay albaabkiisa wuu garanaya shaqo kalena ma laha walaalayaal marka ninkaasi waa ninka iska jira layna yidhi ee rabbi inooga digay subxaana wa tacala yaa ayuha annaasu ina wacda allahi xaqun falaa taqurannakum alxayaatu addunya walaa yaqurannakum billahi algharuur ninkaa kadada badan yuusan idin kadin ina ashayطaana lakum caduwun shaydaan cadow buu idin yahay faاtakhiduuhu caduwan cadow ka dhigta inamaa yadcuu xisbahu liyakunuu min asxaabi الsaciir dadkiisiiyo xisbigiisa wuxuu ugu yeedhayaa inay naarta saciira la galaan oy kala qayb qaataan oo isaga la galaan sidaas unbuu doonaya ujeeddadiisi waa intaan iska jira buu rabbigeena yidhi subxana wa tacaala saddexdaa caqabadood haddaad aragtaan bini aadam lubay oo jidkii jannada ka baxay oo jidkii naarta qaaday asal horta asaas waxaa u ah ibliis baa asaas u ah laba mid buuna u isticmaalay naftiisuu ka soo galay oo naftiisuu u soo maray adduunyana wuu ku lumiyeyoo meesha uu yacni waxa weye sababta uga dhigay uu ku lunsaday waa adduunyada waa magacaas waa xoolahaas waa boqortooyadaas waa macnaha shahwadaas meelahaasuu ka soo galay saas daraaddeed saddexdaa arrimoodna ha layska jiro ha laga taxadaro jidka jannada iyo macaalimtiisa iyo astaantiisuna waa midda kadibna waxa weeye dadaalku innagu inala jira oo innagaa laynaga doonaya inaynu dadaalno faman shaaa falyakfur faman shaaa falyakfur waman shaaa falyuumin kadib idinkaa khiyaarka iska leh haddii ninkii doonaya inuu kufriyowna aday kula jirtaa ninkii inuu rumeeyo doonayowna aday kula jirtaa ninkii jidkaa inuu qaado diyaar u ahow ahlan wasahlan soo dhowow ninkii aan rabinowna waxaad un ku talagelaysaa ha riyoonnine qarowga iyo riyada intaad ka baxdo yacni waxa weeyaan jidkaa aad hayse ee nooca ahayni jid aad janno ku gaadhaysa maaha jid naxariis ilahay aad ku helaysana ma aha jid naar ku geynayo cadaab ilahay aad ku gelaysa way subxana wa tacala allah subxana wa tacala waxaan weydiisanaynaa inuu naga dhigo kuwa hadalka dhegaysta kiisa wanaagsanna raaca rabbi subxaana wa tacala waxaan weydiisanaynaa inuuna waafajiyo jidka jannada loo maro nuguna sugo nuguna soo saaro rabbi subxaana wa tacaala jannadiisa firdowsana ilaahay abaalgud nooga dhigo wixii khalada ilaahay subxana wa tacala inuu naga saamaxo wixii sawaabana ilaahay inuu ajir naga siiyo hada wabillahi tawfiiq wsala allahuma wslama cala nabiyina muxamedin wcala alihi wasaxbi waslem